hooyada gowracay waa waxaan waliga arkin inta adduunka noolaa. gacan ku dhiglihii hooyadiisa dilay dilaagii ugu arxanka xumaa ee dilkii ugu foolxumaa hooyadiisa u geystay maadaama hooyadiisa uu gowracay dil aad u foolxun oo ka dhacay Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. xog ayaan kaaga hayaan kula wadaagi doonaa fadlan nagu soo biro janaalka subscribe noo dhig gambaleelka u fur muuqaalkan like la wixii fikrad ka qabtin qaybta commentiga noo la wadaag. maama Xaliima Maxamed Cumar oo wiilkeeda ay dhashay gacantayda ay sababsatay oo aakhiro u daray. maama Xaliima Maxamed Cumar oo dad badan si ay sheegeen ay aamini la'siin kan in ay wiilka ay dhashay ay tahay maadaama hooyadiisa ay la doonaysay mar dhow in ay u guuriso ama naag ay ku darto oo gurigiisa ay u dhisto, laakiin asigana uu gowracay hooyadiisana uu ka doorbiday in uu aakhiro u diro. maantana oo si xun u gowracay dadkoo idilna dhexdooda uu ku gowracay hooyadiisana ay leedahay war iga gaara maadaama dilaagii ugu arxanka darnaa uu noqday hooyadiisana uu bireeyay uu dhiigeeda daadshay. maamada hooyadiisa ayuu dhibaato u geystay, mindi ayuu u qaatay wuuna gowracay dadka oo idil joogaan. dad badan oo baraha bulshada caanka ah iyo dad warbaahimaha ah oo tagay meesha Kismaayo oo wareystay dadka meesha goobjoogaha ka ahaa markii maamada oo wiilkeeda gowracay ama bireynay ayaa su'aalo dhowr ah la weydiiyay. dadka qaarna in ay sheegeen wiilkeeda inuu yahay, dadka qaarna yaqaana in uu shaki ugu jiro kan wiil ee dhashay ma ahan hooyadiisa oo la ratay in ay u guuriso gabar ay gurigiisa u dhisto ubadkiisana ay aragto ayuu dadka hortooda ku gowracay. maantana asigana saldhiga ayuu jeelka ayuu dhex fadhiyaa oo liinta ku cabayaa maadaama hooyadiisa meesha laga rabay in uu baari u noqdo ayuu surka mindi inuu ka saaro gowracay hooyadiisa oo ummadda muslimkana ay u gurmanay. dadka qaarna ay leeyihiin nafta way ka baxday, maamada oo cabaadayso ay dadka u gurmanaa, ugu dambeyn hooyadiisa ay dhimatay sida daawada muuqaalkaba ka arki karto oo la soo aasayo maama Xaliima Maxamed Cumar oo wiilka ay dhashay gacantiisa ay sababsatay. wiilka ayada ay dhashay oo wiilkeeda ah ayna rabtay in ay mustaqbal u dhisto ayay gacanteeda ku baxday. maantana sidaad muuqaalka ka arki karto daawada janaasadeeda ayaa la wadaa oo dadka muslimiinta oo idil iyo dadka dariska qaraabada la ah eena ku sheekaysanay wiilka ay dhashay in uu dilay gacantiisana uu ku dilay. baraha bulshada ficilkii aadka ugu xumaa maadaama ay noqotay wiil hooyadiisa gowracay sida xayawaanka oo kalena u bireeyay dhiigeedana bixiyay. haddana laamaha amniga ay sheegeen in maxkamad ay soo istaajinayaan kiiskaani sidaan loo waareyn. muuqaalkiisa ayaan kula wadaagi doonaa daawada wixii fikrad ka qabtin qaybta commentiga noo la wadaag. soo dhawow daawade. hooyada gowracay waa waxaan waliga arkin inta adduunka noolaa. aniga u maleyn ma inuu wiilkeeda yahay nin hooyadii dilay waa ninkaas waa nin ma ogi